kadib ayadoo hal maalin dhalan markii ay dhiibtay hooyadeeda waxaa loo ballan qaaday in aanan gabadheeda laga qarin doonin oo kontaktigeeda ay maaragtay mar walba la xariin doono gabadheedana ay soo booqan doonto. Isabella ma loo ogolaaday inay aragto hooyadeeda. familkii qaatayse ballantoodii ma oofiyeen. xagaysa ku dambeysay qisadeeda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ليال كسر دوادة جنال كيجا آمين الشيقنا أنا جنوا آمين الشيقنا هديات هورين ولا جوكتين والله ليال ودكم هتنتي لجوكتان كينا آدي هذا أنت كجمع علينا يا هدي آتيهن أصحاب تنقع عصب ودنقع عصب تهينا نقص بفضلا كم النقطة أصحابتنا فضلا مقالك لايك نوصار إن شاء الله لايك هذا أونلاين اللي هجاسي لايك فربضان إسكسار فري ما هنو يتري marka intaasna waa kaftan walaalayaal maanta qiso waxaan idin wadaa oo aad iyo aad u xanuun badan ayadana taabanaysana hooyooyinka iyo maaragtay badanaa hooyooyinkeena Soomaaliyeed way taabanaysaa waayo waxaa jiro gabdho maaragtay aad u dulman ama duruufaysan oo maaragtay sidaan oo kale ay ku dhacday. waxaa laga yaabaa boqolaal qof inay dhageysanayaan oo arrintan oo kale la kulmay. 1990kii waxaa ku dhalatay gabar la yiraahdo Isabella Suud waxay ku dhalatay meesha la yiraahdo Brazil ku dhalatay. markay dhalatay kadib hooyadeeda Andriana waxay haysatay wiil ka hore ayada 2 sano jir. saacadaas hooyadeeda ay dhalayso gabadhaas waa 19 jir. wiil ka yar ka weyn way haysatay. markay dhashay Isabella markay dhalatay aabaheeda uu ka tagay oo uu cileeyay meesha Afrika lama joogiyo Carabe waxa waaye cid kugu kaalmeynayso meesha ma jirto ilmaha dhashid oo aadan haynin yani waxaan ka wada dadka aan qaxootiga ahayn aan ka wada wadanka u dhashay waxa waaye caawinaad soo badan uma imaato ayagana ma raadsadaan haddii ilmaha ayaga biilan waayaan waxa waa ka dhaqaaqay meesha ilmaha lagu haystay geena ama qof iska siinay. Andriana waxay samaysay maadaama aysan aboodin odaygiina uu ka tagay ay biil iyo waxba aysan u haynin waxay go'aansatay gabadheeda inay siiso cid kale korsanayso. fiidiyoyaal kale saan hore uga soo sheekeeyay waxaa jirto Europe waxaa jirto adaptive wax la dhahayaa jiro cunigaaga marka dhashid hadaad hayn karin ama markii xoog lagaaga qaato kale ay dawladda ka qaadato waxaa loo geynayaa familia loo geynayaa oo ilmahaas korin karo oo korsan karo dhaqaale ahaan dhisan oo shaqaysta loo geenaya. marka Andriana waxay siisay famil ka imaaday meesha la yiraahdo Italia magaalo la dhahayo Tirol Allah saasan jecla si fiican ugu dhawaaqan jecla reer Italia haday maqlaysiin magaciisa sax laakiin qoraalka saas uu qoran yahay. kadib familkaas meesha ka imaaday ayaa gabadhii qaatay maxkamadda lagu kala qaatay oo waxay u ballan qaadeen in gabadhaas ay soo booqan doonto kontaktigeedana aysan ma aragtay aan loo diideynin oo gabadheeda waqtigeeda ay maqli karto arki karto. ballantii loo qaaday darteeda iyo duruufii ayada haystay gabadhii sidii ay hooyadeeda ku dhiibtay. maalinta la dhiibayo gabadhan waxay dhalan tahay hal maalin ay dhalan tahay maanta ay dhashay birina waa la dhiibay gabadhaas. waxaa jiro sabiro iska qaaday oo maxkamadda markii saxiix u dhacay ay tiri mar kale xafaayad kaliya xiranta way qaawantahay markaas waxay tiri markii ugu dambeysay oo laabtayda ku qabto waayay tiri gabadhayda hal maalin kadib markii aan iska dhiibay markii aan dhalay hal maalin kadib. familkii way soo baxayaan magaaladoodii ay soo aadaan Italia hooyadiina waxay ku nagaanaysaa Brazil. kadib maxaa dhici doona waxaa dhici doona 1990kii waa marka laga qaadanayo hooyada maantana markii la raadinayo waxay jirtaa gabadha 28 sano jirtaa. gabadha la raadinayo gabadha hooyadeeda ayada raadinayso walla waxaan maqli jiray idal idaahi lanki idal moogi raxweena kuma maahdo wallahi billah ma fahanta. marka waxa waaye gabadhii ayada soo raadinayso Isabel ayaa soo raadinayso hooyadeeda
waxay ka codsanaysaa telefishinka jarmalka in ay ma aragtay u raadiyaan hooyadeeda. waa idin xasuusinaa barnaamijkan mar kale waxaan idinkaga soo turjumay telefishin jarmalka laga leeyahay oo sameeyo barnaamijyadan aniga aadaan u xiiseeyaa waan rajaynaa inay jiraan ummado badan oo kale oo sideedoo kale oo barnaamijyadan xiiseynaa insha allah wax badanaa laga faa'iida. waxaa waaye qisooyinku waa cajiib. ilaah subxaana watacaala wuxuu dhahay faqususi lqasasa lacalahum yatafakkaruun inay hadan jeclaa ayadda ilahay dembigan ha dhaafo. kadib waxay samaynaysaa maamadii wadankeeda iska joogaysaa. gabadhan waa lasoo qaadanayaa. Deutsche Fernseh waxay u imaanaysaa jarmalka telefishinkiisa u imaanaysaa. gabadhan hooyadeeda loo raadinaa. raadintii ugu adkeed waa umaleynaa intii wax la raadinaa arkaa umaleynaa. waxaa dhacayso maadaama qisada gabadhan ay laba wadan kala tahay iyo wadanka hadda ay ku nooshahay 3 jarmalka ay ka soo codsanaysa in hooyadeed loo raadiyo iyo meeshay ku soo kortay soo tirita maxaa la Tirol allaha iyo Brazil. kooxdu way iskala qaybinayaan. kooxna waxay aadayaan Brazil, kooxna waxay aadayaan Italy aadayaan. marka waxaa dhacayso guriba guri sida loo garaacayo oo loo leeyahay qofkan ma taqaanin adreesyadii oo Italia oo la soo siiyay dadkii wax raadinayay nasiib daro way soo waayeen. marka hore Brazil laga raadinaa waxay u tagayaan booliiska u tagayaan sida macnaha degmado kale dadka meeshii ka diiwaan gashiin. marka booliiski wuxuu leeyahay dhalashada maamada hadaydan haynin aniga guriga ku noosha idin ma sheegi kari. oo meeshan marka telefoon wacdid Europe oo meel wacdid xafiis wacdid ama dhakhtar meesha doon ha ahaado shayga ugu horeeya lagaaga baahan inaad sheegtid waa dhalashadaada. waxaa lagu leeyahay please waxa sheegtaa dhalashadaada sheeg magacaaga ka hor dhalashadaada. kadib waxa sheegaysaa family name-kaaga sheegaysaa family name ay dhahan ingiriiska name salamada kasta ingiriiska meeshaan waxaan ku dhahay nooga dheeshay. marka family name-kaaga sheegay sidaas ayaa lagu raadinaya qofka ama waxaad u baahantahay lagu raadinaya. maadaama aan lahaynin dhalashadii maamada Andriana waxay noqonaysaa in natiijo laga soo waayo meesha la yiraahdo Brazil. telefoon soo diraa jarmalka soo diraya wuxuu leeyahay waan soo waayay dhalashadeeda ii soo raadi oo waxaad ka raadisaa meeshii familkii gabadhan soo karsada ay degnaan jireen oo Italia ah. Italia u soo dhoofaysaa gabadhii telefishin ka socotay. Italia markay imaato adreeskii la soo siiyay way ka weynaysaa. adreeskii la soo siiyay way ka weynay markay ka weyso waxay tagaysaa maxkamadii oo gabadhan maalintii la qaadanayay oo saxiixeed uu ka dhacay iyo heshiiskii. maxkamadii markay tagto waxba ma aragtay adreesii soo siinaysaa la leeyahay gurigaas oo nambarkiisa 15 magaaladaas ku yaalo tag meesha ayaa ma aragtay laga yaabaa markii familkan markii ugu dambeysay meeshay ku noolaayeen. marka waxaa dhacayso meeshii tagaysaa waxay leedahay naaga ugu tagaysaa waxay leedahay aniga meeshan waxaan ku noolahay muddo badan familkaasna meeshan kuma noolo qofna meeshan ma degno mar horeyna magaaladan isaga guureen. qaybtii Italia waxaa waaye rajo la'aan ayaa ma aragtay soo wajahayso dadkii kooxda Italia aaday. kadib waxaa soo wacaayo ninkii 1990kii maxkamadii lagu kala qaatay gabadha mas'uulka ka ahaa qaadiga ka ahaa soo wacaayo wuxuuna ka codsanayaa in labadooda kaliya ay kulmaan maxaa yeelay ma rabo aniga video in laga duubo wajigayga in la arko privatekeyga in la arko ma rabo dabcan xaq u leeyahay qof walba. kadib wuxuu leeyahay adreeskaas iyo adreeskaas ka raadi waxaa la wacayaa meel walba loo tilmaamay xataa maxkamadii lagu noqonaa oo ka codsanayaa in laga raadiyo feelkeeda. nasiib daro waa laga weynayaa. nasiib daro aad iyo aad u weyn ayaa qaybtii Italia kala soo kulmayso. kadibna waxay dib ugu soo noqonayaan kooxda telefishin ka socotay wadanka Jarmalka. maalmaha kamid waxa soo wacayo kooxdii aaday Brazilian ka raadinaysay Brazil kooxdii ka raadinaysa soo wacayso wuxuu leeyahay waxaan ii sheeg booliiskan waxaan ka codsaday mar kale inuu ila raadiyo. waa la raadiyay maadaama waa la isku keenay ay gabadhan 19 jir ahayd 90kii 19 jir ama 17 jir 19 jir ahayd 19 jir ahayd
sidii taariikh iyo wix la isugu dhufsaday waa la raadiyay markii la raadiyay waxaa dhacday in ma aragtay oo la helo xaafadii maya waa idin soo sheeka dhaaf saas ma booliiska marka labaad intaan lagu laabanin waxaa dhacayso in la tago gurigii markaas ay ku noolaan jirtay sawir laga hayaa sawirkeeda iyo gurigii ayaa la isla hayaa magaaladii uu ku wareegay uu leeyahay gurigan intee gurigii markii dambe arkaa oo loo tilmaama gurigii dadkii oo dhan weydiina markuu soo quusto ayaa naag waxay dhahaysaa aniga gabadhan waan aqaanaa laakiin waxa iigu dambeysay 30 sano ka hor iigu dambeysay mise 20 sano ka hor iigu dambeysay waxayna ku nooleed markii iigu hor dambeysay magaalo la dhahayo Nova Horizonte alha waxaan ku dhahay dalxiisaan ku jiraa anoo gurigeyga jooga kabaran adig magaalooyinaan baranooyaa wadamaan baranooyaa maasha allah ya meesha ayay ma aragtay meesha iigu hor dambaysaa la leeyahay ninkii gaari uu qaadanaa wuxuu tagayaa Novo wasoo gaabsanaya Nova uu tagaa siduu u raadinayo naftaa ka dhacayso markaasuu booliiska ku laabanaya booliiska markaasay u raadinayaan oo la heli doonaa meesha ay joogto Andariana kadib waxay u sheegayaan booliiska inay joogto meel la yiraahdo Seha haddaanan qaldaneen oo sheekada isdamarin Seha meel la dhaho inay degan tahay loo sheegaya way baxayaan booliiskii uu soo waxa wuxuu leeyahay waxaan ku hayaa war aad iyo aad u fiican aan ku hayaa iimaw waa la soo raacaya wuxuu leeyahay markay guriga tagaan adiga inta igu sug li'anna waxaan soo weydiinaa qofkii inuu raali ka yahay marka qaar waxa laga yaabaa qofkii inuu sarabinba qofka raadinayo moogta laakiin ma dhacaysa umareena waalid cunigiisa soo raadiyay ilamaha inuu diidayo qaasatan hooyo ilaahay hooyooyinkeena ha u naxariisto fi dunya wal aakhirah marka wiilkeeda joogo ayada way shaqeysaa oo wali duruufihii way isaga jirtaa laakiin tii way dhaantaa laakiin waxa waaye dadka taajiriinta guryaha tagtaa ay usoo hagaajisaa ay usoo kala maaragtay hagaajisaa lacag naasas ku qaadataa yani sasay ku shaqeysataa hadda meesha loogu tagaa wiilkeeda guri loogu tagayaa Daniel walaalkeeda keer waxa la leeyahay telefoon loo diraa adresskiya la siinayaa guriga ka shaqeynaysa loogu tagaa ma la sugaayaba kadibna meesha markii loogu tago way ooynaysaa yani way isku dhaxyaacaysaa waxay leedahay sheekada waa la ii sheegay gabadheedina iraadinaysa aad ugu faraxsanahay waa nasiib aad iyo aad wanaagsan arrinkan kadib waxa la leeyahay nagey meel aan ku wada hadalno oo degan guriga isku soo raacayaan wax walba uga sheekeynaysaa waxay leedahay waxa la ii ballan qaaday gabadheeda aniga inaan maaragtay arki doono kadib waxay leedahay wixii ballan qaadkii oo dhan been u noqday gabadheedu waa isku day inaan raadiyo waa heli waayay waxay leedahay qaladkii xayaatadeyda ugu weyn aan sameeyay wuxuu ahaa in aan gabadheeda iska dhiib waxa ii fiicneed inaan isla dhimano ama isla noolaano laakiin waxaan islahaa nolosha adiga aad ku riyoonayso gabadhaada adiga ma siin kartid sidaas darteed familigan lacagta leh gabadhaada si gabadhaada noloshan aad ku kortay ama nolosha hadda aad ku jirtid ood ku tarbiyeen lahayd nolol ka wanaagsan in ay hesho mararka qaar waxaa dhaca qaladaad aad iyo aad u waaweyn qofkii bini'aadamka ka dhaco asagoo u turaayo qofka ama jaceylka uu qabo dartiisa qaladaada dhaco yani hadda maamadan waxay ku fakartay waxay tiri gabadhan ma hin kartid famil fiican oo lacag la sii wayna dhacdaa aniga fikradeydana arrinkaas si haddii loo fiiriyo gabadha maamada yani gabadha haddaysan haynin cuniga waxay siisa jirkeeda ma siinayso haddii wax macquul uusan jirin يعني هذا يقول قالت إلهي سوى البرتوك أرزاقه وأنا قالت إسناد على ليه عنقا قال لي مأملا نولا لكن وأذكتها هاي وين جرتا محنكو هذا لباتوين كاس أو تراب بدن ودنكو أكجرا شكل ذي إلى بحن ويسأل كيان وين يسوي حلة قبل يدوا وحس وانو كفر حسنا هاي ما أنتنا وحلة هذا لقي قلبي يقصرنا يعني يقدقي لكن ولا شيء ذا قالت كان أنجلي ما إسعفين دوني أنيقا ما أنا أهم اللي يقعفين كرو محلي قبل هذا وحبد بكم مسارين وينكو أماني سو حسن ميسي جو أنجيسي لما لها نقادتي وينكو مهد علنيسي إن أذيك عاد نولش هذا عاد نولش هذا كدورتي يعني حنون إنا كنو لاتيد آيات كدور بدي
gabadhaada intay maaragtay rafaadi leedo nolol isan yacni nolosha adiga arabta ay ku noolaan karin maaragtay marka sidaas darteeda gabadhaada waxaa way kugu faanaysaa wayna ku mahadcelinaysaa kadib waxaa dhacayso in la soo kaxeeyo maamadii iyo wiilkeeda oo loogu keeno gabadhii Jarmalka hooyadeeda raadinaysay Isabel iyo hooyadeeda dib ayay u midoobeen waxaa jirto dhibaatooyin aad u fara badan oo qisooyinkan oo kala ah haddii ay dhacdo gabar sidaas oo kale yani ay ku dhacday qisadeeda fiirsanayso kommentaarka way soo qori kartaa commentiga aan dhahe ama way la soo xiriiri kartaa haday jeceshahay haddii ay haysiin qisooyinkan oo kale oo Soomaalida ku saabsan wala ila soo wadaagi karaa aad iyo aad waa mahadsantihiin qisadii maanta intaan ku soo gabagabeynayaa ilaahay waxaan uga baryayaa hooyo walba iyo ilmaheeda oo kala fogaaday ama xoog looga qaatay ama ay duruufta kala geysay wax un ay ku kala tageen ilaahay subxaanahu wa tacaala ha isku keeno ilmaha kala maqan iyo hooyooyinkooda ilaahay hooyooyinkoodana qalbiyadooda ha u dhayo boogahooda Allah u dhayo ilaahay subxaanahu wa tacaala gabdhaheena Soomaaliyeedna waxaan uga baryayaa duruufta inuu ka saaro oo aysan ku qasbanaan caruurtooda inay dayacaan ama ay ka tagaan ama laga qaato ilaahay waxaan uga baryaa ragga Soomaaliyeedna inay noqdaan rag mas'uuliyiin ah oo ilaahay ka cabsada oo caruurtooda xifdista haddii aad kala tagtiin xataa caruurta ha la furin xaaska ee ilmahaaga hayso maxaa yeelay Allah subxaanahu wa tacaala yawm alqiyaama aduu ku kula xisaabtamaya qisadii intaan ku soo gabagabayna uu ila dheeraaday walaalayaal aad mahadsantihiin markale waxaan idinka codsanaa videoga inaad like saartaan insha Allah oodna nagu soo biirtaan aad iyo aad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh